wiilkan la yidhaahdo xamse oo jacayl uu in badan beerayay kala kulmay dhibaato. sheekadina waxay u dhacday sida tan. xamse waxa uu dhigan jiray mid ka mid ah jaamacadaha magaalada Hargeysa, isagoo aad ugu dadaali jiray aqoonta uu ka baranayay oo uu ahaa hormuudka jaamacadda. xamse ayaa maalin maalmaha ka mid a uu baskii jaamacaddu ka tegey isaga iyo wiil ay saaxiibo ahaayeen oo la odhan jiray geedi, oo ay ahaayeen saaxiibo aad isugu dheer oo ilaa yaraantoodii meel ku soo wada koreen waxna soo wada baranayeen. markii baskii ka tegey waxa ay bilaabeen in ay lugta micinsadaan si aanay uga habsaamin jaamacadda. sidii ay socodka ugu sii jireen ayaa markii jaamacaddii ay soo gaadheen ayaa waxay la kulmeen inan doonaysa xafiiska jaamacadda oo aan kala garanaynin halka uu ku yaallo xafiiska. gabadhani waa qof uu ilaahay ku manaystay qurux iyo aftahannimo. markii indhaha xamse ay qabteen gabadhani aad ayuu ugu indhandaraandaray, markaasuu si dareen iyo kalgacal leh u eegay. wuxuu cabbaar eegaba xaggoodii ayay u soo dhaqaaqday. kadib xamse iyo saaxiibkii ayay weydiisay inantu halka uu ku yaallo xafiiska jaamacaddu, waxaana ay ku tidhi, walaal iga raalli ahaada, waxaan rabaa inaad ii sheegtaan xafiiska jaamacaddu halku ku yaallo idinkoo raalliya. markaasi ayuu la soo booday xamse, walaal hore u soco, isagoo haddana fahmay in aanay kala garanaynin jaamacadda. waxaana mar labaad u yeedhay inantii, waxaana uu ku yidhi, ka waran haddii aan anigu ku geeyo xafiiska jaamacadda? waxaana ay ku tidhi, haye walaal isoo tus, waad mahadsan tahaye. ninkii xamse ahaa gabadhii gee xafiiskii kana soo noqoy, waxaana uu galay fasalkiisii. intii uu ku sugnaa fasalka waxa maskaxdiisa ka dhex guuxayay quruxdii gabadhaasi, isagoo kolba isku qancinayay inay tahay gabadhani midda ugu quruxda badan dumarka u arkay. markii uu ka soo baxay fasalkii ayaa waxay isku yimaadeen saaxiibkii geedi. saaxiib, arrin ayaa soo kordhay. saaxiib, maxaa soo kordhay? geedi, ma xasuusataa markii aynu soo gelaynay jaamacadda inantii inaga hor timid ee tidhi waxaan rabaa xafiiska jaamacadda? haa, gartay. dee miyaana tusin xafiiskii? saaxiib, haa waan tusay, laakiin mid kale ayaa jirta. saaxiib, ma arkaysay siday u quruxda badnayd? geedi waxa ay qaaday udugeedii iyo qaabkay u socotay ee ay tallaabada miisaanka leh u qaadaysay. geedi waxaad mooddaa quruxdii adduunka. haddaan saaxiib haysan lahaa hay-adda quruxda adduunka qiimaysa, waxaan u dooran lahaa quruxda adduunka inantaasi. saaxiib, haweenka hadda jira aamin ma lahee inaga daa. taasoo ka waran maanta casharkii? geedi, aniga oon ka salgaadhin oo aan ogaanin halka ay degan tahay iyo cidda ay tahay, taladayba tala maaha saaxiib. muddo kadib xamse oo aan dib u arag inantii ayaa subax uu soo kalahay oo uu niyadda ka leeyahay talow mar uun idhahayaa kuu saara mar kale. inantii ayaa uu nasiibkiisu la kulansiiyey. gabadhan uu jeclaaday xamse waxaa la yidhaahdaa ubax. xamse ayaa si lama filaana u arkay ubax oo ka soo degaysa gaadhi yar oo garandaah. ubax xaafadoodu waa reer maal iyo adduun uu ilaahay ku manaystay oo aan xataa la tabin shilinka lumaya iyo ka khasaaraya toona. ubax waxa ay ku nooshahay nolol heer sara. waxay leedahay quruxay xataa ragga iyo wiilasha deriskoodu ay in badan qalbiga ka jecel yihiin oo aanay awoodaynin in uu nin quri u babac dhigo. ninkan xamse wuxuu jeclaaday maaha ruux yaqaana jacayl iyo rag toona. waa gabadh ku indhadilaacsatay hantida aabbaheed, xataa ma oga in dad kula nool yahay magaalada amaba xaafadda. waxaanay ahayd mid aad u kibir badan oo aan xataa aqoonin qadarinta. laakiin horaa loo yidhi qurux aan dadnimo lahayn waa geed bilaa midhaa. geesta kale waa kii abwaankii gebiyey lahaa, kibirka waa lagu jabaa. xamse waxaa hor timid inantii uu u salali jiray ee uu raadinayay ayaamahan, salaan diiran oo dareen wadata. kadib waxaa meesha ka dhacday isbarasho xiise ay weheliso, lambarradiina la kala qoray. ninkii xamse ahaa wuxuu galay farxad aanu hore u arag weligii inta uu dunida ku noolaa. laakiin dhibta haysatay xamse ayaa waxay ahayd uma uusan sheegan jacaylkiisa inantan ubax ah. waxa uu habeen iyo dharaarna ka fikiri jiray goor uu u sheegan doono jacaylkiisa, isagoo mar kasta niyadda iska odhan jiray, ma inanta walaaltinimadu idinka dhaxayso ayaad odhan waan ku jeclahay? maya ninyow, taasi waa waxaan suurtagal ahayn. laakiin ma u sheegtaa mise waan qarsadaa? laakiin sawtii hore loo yidhi waxaad qarsataa way ku qarsadaan. iska daa, maalin ayaan sugayaa
ay isoo martee sidii caadiga ahayd ee uu mar walba ula soo hadlayey marna uu jaamacadda u soo raacayey ayaa maalin saaxiibkii arkay isagoo la socda ubax markaasi ayuu yaabay xamse ayaa ku yidhi saaxiibkii saaxiib geeddi ii warran waa aan fiicanahay ayuu ku yidhi geeddi waxaanu halkaasi isku baray inantii ubax ahayd iyo saaxiibkii geeddi ayaa ku yidhi saaxiibkii xamse saaxiib markaaad ka soo noqoto ii kaalay arrin ayaan kuu hayaaye xamse ka yimid ubax una yimid saaxiibkii geeddi markaasi ayuu ku yidhi saaxiib waan kuu imide maxaa dhacay waxaana uu ku yidhi geeddi saaxiibkay xamsow idhegayso saaxiib gabadhaa isaga hadh iskana ilow saaxiib waayo waxaan rabay inay gabadhaydii noqoto waxaan rabay dhowaan inaan u sheego inaan jecelahay ilaa intaas oo dhan waxaan u daba socday waa jacaylka aan u qabo geeddi ha ilaawin waa qof aad u qurux badan maxaad ku diidan tahay xamsow saaxiib anigu saaxiibka ayaan ahay mana jecli in dhibaata ay ku soo gaadho saaxiib gabadhani waxay ka dhalatay reer lacag leh oo waxaan ka baqayaa inay kugu dan gaadho saaxiib ha ilaawin waxa ku ilaashanaya hooyo iyo 6 carruura oo agoona saaxiib maanta waxa ay sugayaan goorta aad adigu mas-uuliyadda la wareegi doonto hooyadaa waxay maalin walba milixda ugu iibisaa khudaarta waa sidii ay mustaqbalkaaga waxbarasho u soo saari lahayd saaxiib ka fikir naftaada iyo 6diina carruura jacaylkani waxa uu yimid xilli aan kugu munaasib hayn yahay hadimada ka dhowrso guushana marinkeeda haybso tallaabada halkaad dhigayso horteeda balaad u fiirso tallaabada halkaad dhigayso horteeda balaad u fiirso saaxiib waxaan kugu waaninayaa inaad faraha kala baxdo waa talow aan ku siiyey saaxiib geeddi shaydaanka iska naar wax kastaana waynu dhammaynaynaa ee inaga daa saaxiib warkaasoo ina mari saaxiibkay xamsow dantaada ka fikir oo gabadhan baddeeda ka bax waxaan kaaga baqayaa gabadhan aad leedahay way iga farxinaysaa inay berri kaa oohin doonto oo ay cidlo kaaga dhaqaaqdo saaxiib mar dambe yaan kugu arkin inantan iyo magaceeda toona haddii aan ahay saaxiibka saaxiib geeddi waa yahay mar dambe lama kulmayo magaceedana halkaasi ayaan kaga dhaqaaqaya saaxiibadii ballan ayay wada galeen ah inaanu xamse la kulmin ubax laakiin horaa loo yidhi nin meeli u caddahay meeli ka madow xamsena waxa u muuqato uu keliyaata quruxda iyo jacaylka uu u qaaday inantii ubax ahayd ayaa waxay dhowr cisho isku tidhi horta xamse waa maxay sababtan uu mar kasta uu kugu yimaado kuguna yidhaahdo hadalladan macaani iyo u raxlayntan badan bal aan ogaado ujeeddada ka dambaysa maalin casara ayay ubax la soo hadashay wiilkii xamse ahaa hallow ii warran walaal waa ubaxe haa walaal ubax ma fiican tahay xaafadda iyo hooyo ka warran walaalo haa walaal waanu fiicannahaye xaafaddu way nuuraysaa adiguna sidee tahay walaal alxamdulilah walaal aad ayaan u fiicannahay maanta aad ayaad u cod macantee maxaa cusub walaashay walaal waxba ma jiraan laakiin xaafadda caawa casuumad loo sameeyey anna ma doonayo inaad raaco markaa waxaan rabay inaad ii timaado haddii aad awoodi karto walaalo ma intaasaa walaal waan ogolahay waanan kuu imaanayaa haddii allah awoodda lay ogolaado aad ayaad u mahadsan tahay walaal xamse oo cirka iyo dhulku farxad hayn laayahay ayaa iskula hadlay malaha aniga maanta uma tegayo mise waa run laakiin saaxiibkay ballantii aan ka qaaday maxaan talow sameeyaa iska daa saaxiibkay anaad dejin oo wax fahamsiin doona wiilkii xamse ahaa wuxuu bilaabay inuu u tago saaxiibkii geeddi si uu uga soo qaato suudh iyo kaba uu lahaa waxa uu kadinka xaafadda kula kulmay geeddi oo xaafadda ka sii baxaya oo ku socda xaafad ay qaraabo yihiin saaxiib geeddi ii warran saaxiibkay xamsow waan fiicanahay geeddi waxaan rabay suudhkaagii iyo kabahaagii baabuurka ahaa waan ku siinayaa saaxiib xaggee tegaysaa caawa ma aroos ayaad u socotaa maya inamo aan saaxiiba nahay ayaan u raacayaa xaflad qalinjebin ah waayahay saaxiib anigu waan degdegayaa xaafadda horow gal haayada yar ee najax waxaad ku tidhaahdaa isii suudhkii iyo kabihii geeddi aad ayaad u mahadsan tahay saaxiibkaygii rumaad saaxiib waxaa iyo wax ka badan waynu isku leenahay ee inaga daa ha u bixin xamse soo qaaday suudhkii iyo kabihii u labisay sidii wiil gabadh u soo geed fadhiisanaya u diyaargarow sidii nin gabadh galabto loo soo gelbinayo
quruxdii xamse waxa ay soo baxday markii uu suurkii xidhay waxaana uu ku noqday nin aad ugu qurux badan suurka waxaa la soo gaadhay xilligii ballanta isa soo taag guriga geed ku ag yaallay ileen waa inan u sii diyaargarowdee markii ay aragtay in uu guriga ag taagan yahay ayay u timid waxaana ay ku tidhi xamse ii waran waad qurux badan tahay maasha allah caawa waad nuuraysaa walaalkay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay walaal waanaan fiicanahay adigu seetay iiga waran caafimaadkaaga waan wacanahaye ina mari xaafadda waxaad joogta saaxiibaday oo aan doonaya inaan iskiin baro gudihii ayay galeen waxaanay isbartay xamse iyo saaxiibaddeed xamse oo wadnaha garaaciisu uu sida saacadda sanqadhaayo ayaa la fadhiisiiyey qolkii fadhiga kadib waxaa loo keenay sharaab ubaxna soo hor fadhiisatay ilan waa nin jacayl buuxiyey kashiise ma nin cunta u dhadhamaysaa xishood iyo daymo ayaa ka soo hadhay ninkii xamse ahaa kadib waxaa bilaabmay in hadalla kaftanah lagu furfuro sheekadda xamse ayaa markaasi hadalkii furfuray oo bilaabay waxaana uu yidhi walaal gurigiinnu aad ayuu u qurux badan yahay weliba waxaan aad ula yaabay dhirtan aad ku beerteen ee ku wareegsan daaradda ilaa dibadda ee weliba ay u dheer tahay sharaxaaddu waad mahadsan tahay walaal horta iiga waran nolosha xaafadiina waxaan nahay 7 carruura oo aniga ayaa ugu weyn waxaanan leenahay dhowr subermarket oo ku kala yaalla magaalooyinka burco hargeysa iyo boorama gaadhi aan lahaan jirayna maalin dhoweyd ayaa waxa la siiyey adeerkay oo waxa laysiri xamse yaanu meel gelinine ka qaada adigu bal isaga kay waran waan gartay walaal annagu waxaanu nahay oo aan la dhashay 2 carruura aniga ayaa ugu yar labada kalena waa iga waaweyn xamse oo leh maanta ayaad fursad haysataa ee soo bandhiga jacaylkaaga oo haddana qalbigiisa uu ka baqayo inuu soo bandhigto islamarkaana uu u sheegto ubax dareenka jacaylka ah ee uu u qabo xamse way ka go'an tahay inuu caawa ismidaamiyo wixii ka dhacayaabaha ka dhacaana kadib waxa uu yidhi ubax horta heesaha ma jeceshahay sidaa uma sii jeclin laakiin kuwan dambe ayaan yar xiiseeyaa waan fahmay waxaan rabaa caawa inaan wax kuu sheegee ka waran ubaxay soo daa xamse diyaar ayaan u ahay walaal wax badan ayaan isku dayey inaan kuu sheego arrintani xataa ma aqaano meel aan ka bilaabo iyo ereyga aan ku dhawaaqo amaba aan ugu yeedho laakiin waan kuu sheegayaa ee i dhegayso waxaan rabaa inaan fikirka iyo talada midayno macnaha haddii aad raalli ka tahay inaynu xidhiidhkeenna u roganno jacayl maxay adiga kula tahay xamse oo dhidid aad u waaweyni ka soo daatay hadalkii kadib isla mar ahaantaasina noqday sidii qof wadnaha qalniin looga samaynayay ubax oo weli aan jawaab bixin welina laysdaawanayo oo indhaha uun layska eegayo ayuu xamse ku yidhi cod hoose haddii aanad raalli ka ahayn iska daa walaal ubaxay ubax oo xasuusatay in ninkan xamse ahi uu yahay hubkii ay uga gudbi lahayd imtixaanaadka soo socda ee jaamacadda markiiba waxa maskaxdeeda ku soo dhacday ninkani waxa uu yaqaanaa aqoon ee ka faa'iidayso si aad uga gudubto imtixaanka soo socda jacaylkiisana uga faa'iidayso kuna gaadh halka aad doonayso ubax oo inta ay indho dareen leh ku eegtay xamse ayaa ku tidhi walaal maxaan kugu diidayaa adigaaba dunida shidee waanan ogolahay laakiin shardi ayaan wataa xamsow ubaxay xataa naftayda oo halis aan gelinaya ha noqotee waan samaynayaa ee muxuu yahay shardigu waa in aanay cidi ina ogaanin labadeenna in aynu wada sheekaysanno waa yahay waan ogolahay cidina ma ogaanayso arrinteenna iyo jacaylka labadeenna inoo dhaxeeya intaa markii uu ku yidhi ninkii xamse ahaa farxaddii ku sii farabadatay oo sidii daad ku noqotay waxaana uu kala garan la'yahay meel uu joogo markaasi ayuu farxad darteed yidhi sadaashahankayga markuu sadrigaygu su'aalayo dookha inuu sawirkeeda cashaqa ku sifeeyo daruur subax hortay sax baanu arkaadhe sax baanu arkaadhe waxaa sidii loo sii wada socday dhiisha jacaylkana laysu dhansiinayey uu xiisihii iyo jacaylkii uu noqday midkan boqoriyeen dadkaba u bogoor jacaylka ube ubax soo baxa jacaylka ube ubax soo baxa midii badee xubigay bartee beerkayga lushaay
aalushaay jacaylka u beer ubax soo baxa hodanayo beer ubax soo baxa mid kastaana dhankiisa ayuu ka giijiyey iskana jiray in aanu jacaylkiisu dhinacana ka dheeliyin iyagoo markaasi ay labadooduba ay leeyihiin sida tahay ugbaa ilay soo bixiyo iftiin nuureya u tahay qalbigee adaan kula farxaa أوضنحا أحد بيننا أحوذها أحمر وغيرها waxaa la soo gaadhay xilligii imtixaanka loo diyaar garoobi lahaa oo qof kastaa wuxuu u diyaar garoobayaa imtixaanka jaamacadda xamse waxa uu dadaal weyn u galay in galab iyo aroor kasta inuu soo saaro ubax oo ay ka mid noqoto ardayda u sarraysa taasina way dhacday waxaana ay ka mid noqotay 10kii arday ee ugu sarreeyey jaamacadda gabadhii ubax ahayd waxaana ay gaadhay hadafkii ay rabtay xamse ayaa galab la kulmay ubax oo dukaan u dhow xaafadooda wax ka iibinaysa markaasi ayuu u yeedhay oo uu ku yidhi ubax hadda waa tan oo hawlihii waa inoo hagaageen jacaylkeennuna wuxuu gaadhay heerkii aynu u baahnayn ee adigu warisii waanu fiicannahay jacaylkuna waa sidiisii waanu fiican yahay qaalidii mustaqbalkaygaay ilaali axdigeenna oo ogow weligaa jacaylkeenna haddana xaafadda ayaa lagaa sugayaa mana doonayo in lagugu qayliyo oo lagugu yidhaahdo xaggaad ku maqnayd ee inamari aan hore kuu sii kaxeeye sidii loo wada socday jacaylkiina uu u noqday mid xididaystay oo jirriddiisu ay adkaatay ayaa maalin ay barqa ay tahay ubax iyo xamse oo wada socda ay isku aragtay inan la yidhaahda sagal waxay ka mid tahay hablaha ay isku xaafadda yihiin xamse dhanna waxay kala saaxiib tahay ubax iyagoo markaa kala dhaqaaqaya ayay sagal aragtay kadib sagal waxay u timid saaxiibadeed ubax waxaana ay weydiisay waxa ka dhaxeeya xamse iyo iyada ubax oo xaqiraad iyo aflagaado isugu dartay ninkii abaalka u galay ayaa tidhi saaxiib ninkani waa leeyahay oo waxa uu leeyahay waan ku jecelahay ka waran laakiin adigu sagale ma taqaanaa haa waan aqaanaa aqoon dheer ayaan u leeyahay hooyadii suuqa ayay ku iibisaa khudradda aabihiina waa uu dhintay oo waa agoon markaas ayay ubax la soo booday oo miyaanay subarmarkidii lahayn maa subarmarkid baad ka hadlaysaa waxay degan yihiin cariish ubax oo muddo badan raadinaysay dariiqii ay qiil uga dhigan lahayd inay kaga takhallusto jacaylkiisa cidlana uga dhaqaaqdo ayaa tidhi oo been ayuu igula socday intaasoo dhan saaxiib caawa ii kaalay waxa ku dhaca haddaanu dhagaha faraha gelin oo aanu ka xanaaqin inan dambe oo lacag leh ilay ninku danaysta weeyaan ujeeddadu ka lahaa waan ku jecelahay aan ku arko isla goobtii iyadoo taagan ayay la hadashay xamse oo ay ballamisay kana codsatay inuu caawa u yimaado xamse oo u riyaaqay inuu la kulmayo ubax ayaa yidhi waan kuu imaanayaa xabibi xamse ayaa u tegey saaxiibkii geedi una sheegay halkay wax marayaan waxaa kaloo u sheegay inuu guul gaadhay oo uu hadda jacaylkiisii haysto kadib geedi ayaa ku yidhi saaxiibkii xamsow anigu guushaadaan jeclahay ee haddaad is haysataan hadda waan soo dhowaynayaa dumaashiday markaa saaxiib sida ugu dhaqsaha badan waa inaad subkaaya bartaa dumaashiday xamse oo aad ugu farxay saaxiibkii oo aad u taageeray arrintiisa isla mar ahaantaasina garab istaagay ayaa u sheegay inuu caawa la kulmayo oo ay u imaanayso isla markaana uu soo diyaar garoobo saaxiibkii si uu isu baro labadooda waxaa la gaadhay xilligii ay isu imaanayeen ubax iyo xamse si caawa waxaa labadoodaba la socda laba ay saaxiibo yihiin waa geedi iyo sagale teeda kale caawa iyo murugtu maxay noqon doontaa markii goobtii laysugu yimid salaan iyo isbarasho kadib ubax ayaa gooni ula dhaqaaqday xamse waxaana ay ku tidhi
xamse waxaan doonayaa inaan arrin kuu sheego taasi oo ah walaal jacaylkeenu ma aha mid suuragala waayo anigu diyaaru ma ihi in aan kula sii wado sababtana adigaa leh ee halkaas haynoo kala joog xamse ayaa markaasi ugu jawaabay walaal ubaxay maxaa dhacay ee aanu u suurtagelinin jacaylkeennu sawtii aynu axdi dhigannay maxaa hadda keenay arrintani miyaanu jacaylkaygu ku qancin walaal waa ku sidee ubax idhegayse xamsow waa maxay duruufta kugu kaliftay in aad been ii sheegto taasi oo ah inaad igu tidhi waxaanu leenahay subermarketyo iyo in aad hanti aad leedihiin oo beenbeen aad ii sheegto ubax walaal sababta igu kaliftay inaan been kuu sheego waxa weeyaan adigu haddii aan runta kuu sheegi lahaa adigu may aqbali lahayd waa maya jawaabtu taasina waxaan u sameeyey si aan isaga kaa dhigo qof hantiilaa isla markaana aad isku mid tihiin teeda kale waxaa arrintan oo dhan keenay waa jacaylka aan adiga kuu qaaday sidaa daraaddeed waxaan u sameeyey oo qudhiyaata waxa weeyaan sidii aan ugu guulaysan lahaa jacaylkayga ee walaal hadda runtu waxay tahay inaan anigu adiga uun ku jecelahay ee walaal iga raali noqo haddaba waxaan anigu go'aan ku gaadhay in aynu kala fududaanno oo aad magaalada ka raadsato qof kuu qalma waayo anigu kuma jecli waxaad samaysaa qofku jecel raadso haddana hadalka soo gaada xuuso haddaan ku fahmay ubaxay ma markaad ogaatay inaanan hanti lahayn ayaad cidlayga ka dhaqaaqaysaa walaal sidaa ha samaynin ubaxay waayo ilaahay ayaa hantida bixiya ee walaal ubaxay waxaad samaynaysaa waa qalad haddaanad jeclayn maxaad sidan iigu soo dhowaatay ee aad iila gashay axdiga iyo ballanta beenta teeda kale ereyadii macaanaa iyo halkudhigyadii macaanaa ee aad mar kasta iigu sheekayn jirtay ma been bay ahaayeen ubaxay jacaylkii aad igu odhan jirtay mar kasta ku soo dhowow ma been buu ahaa isu imaatinkeennii iyo wada qosolkeennii iyo wada socodkeedii ma waxay ahaayeen kuwo aad dan gaara ka lahayd oo been ah ubaxeey waxaad samaynaysaa walaal waa qalad ballantaadala gashayna inaad ka baxdaa waa qalad xamsow anigu ballantaan kula galay ujeeddadeedu waxay ahayd inaan ka mid noqdo ardayda ugu sarraysa jaamacadda waayo markii aan ogaaday in aad tahay qof aqoon leh ayaan ku fikiray inaan kaa faa'iidaysto markaa walaal xamsow iskuleefan manihine isaga carrow meesha walaal ubax walaal ka joog waayo horaa loo yidhi adduunku waa maraad gaadhi weydo iyo mar aad garan weydo maanta ubaxay waxaad samaynaysa ka joog ubaxay waxaa ku hor joogta naf dhab kuu jecel markaasi ayaad doonaysaa walaal inaad cidlowgaga dhaqaaqdo walaal ha samaynin sidaa ubaxay macan isigii ku doortay yaa layska diida doqonida macmale iyo dugaal male darale madawba digdaabyadaadani kadib waxaa hadalkii maqlay sagal iyo geeddi oo iyagu meel ka yara durugsan ku sugayey geeddi isagoo arkay saaxiibkii oo ilmadu ka qubanayso afkiisina uu juuqda gabay markaas ayuu isku dayey inuu la hadlo ubax waxaana uu ku yidhi ubaxeey maxaa dhacay ubax ayaa markaasi si dheeldheer ah ku tidhi dee isaga weydii walaal wixii dhacay markaas ayuu ninkii xamse ahaa hadlay waxaana uu yidhi saaxiib geeddi waxaan intaas oo dhan aan soo waday waxay ahaayeen waxba kama jiraan saacadihii badnaa ee aan jacaylkayga u huray waxa uu ahaa waxba kama jiraan ubaxna hadda way khiyaamaysay dantay lahaydna way gaadhay hore ayaad iga waanisay inaan ka waantoobo oo aan ka joogsado se maanta saaxiib dhibteedii way igu dhacday ee saaxiib bal ubax la hadal ubax ayaa markaasi la hadashay geeddi waxaana ay ku tidhi geeddi walaal iga qaxee saaxiibka oo u sheeg walaal anigu diyaaru ma ihi jacaylka iyo waxa uu ka sheekaynayo ee waxaad ku tidhaahdaa nabadgeliyo una sheeg walaal yaanu lambarkayga soo qaraacin ubaxay walaal qaladku waa dhacaa laakiin hadda waa uu kuu qirtay waxa uu sameeyey ee walaal jacaylkiisa halkaa ha kaga tegin ee wax la qabo waxaan intaa kugu darayaa ubaxay hore ayaa loo yidhi naf ilaahay leeyahay nafsi lagama galo ma laga yaabaa inaad cagtiisa hoos timaaddo oo hadhow aad weydo cid dhibaatada kaa caawisa ilaan waa nafsiyo ruux lagu kibruu u hiiliyaayey marka uu gumaaday
walaal baddaa ka bax aniga nabsigu ha yimaadee imikana waan tegayaayo khayr ayaan idii rajaynayaa. kadib xamse oo hadalkiisu uu noqday ilmo iyo calaacal ayaa ku yidhi saaxiibkii geedi saaxiib qabo yaanay tegine markaasi ayuu geedi ku yidhi saaxiib diyaaru maaha jacaylkaaga iyo inay kula hadasho ee saaxiib samir. markaasi ayuu haddana xamse ku celiyey saaxiib ma awoodi karee saaxiib la hadal oo soo raalligeli adigu saaxiib. bartii ayay kaga dhaqaaqday inantii ubax ahayd waxaana halkaasi oohin iyo maroor dilaac ay ku qabsatay ninkii xamse ahaa keliyata waxa garab iyo gaashaan u ah saaxiibkii oo qudha. markaasi ayuu geedi soo kaxeeyey waxaana uu geeyey ninkii xamse ahaa xaafaddoodii. xamse ayaa markii uu xaafaddii hor geeyey geedi ku yidhi saaxiib waad arkaysaa caawa dhibta igu dhacday, waad arkaysaa sida loo khiyaameeyey naftayda, waad arkaysaa sida axdi beena layla galay. saaxiib beritoole u tagoo saaxiib ii soo maslax, adigu wuxuun saaxiib samee arrintayadan soo dhex gal. geedi ayaa ku yidhi saaxiib beritoole anigaa u tegaya wax kastana ka soo dhaadhicinaya ee iminkana waa daallan tahay jiifso shayddaankana iska naar. ninkii xamse ahaa gudihii ayuu galay xaafaddiina waxba umuusa sheegin qolkiisii ayuu hoosta ka soo xidhay. keliyata waxay u ahayd ilmo iyo ciil iyo isceelkaambi waxaana kow la soo noqday waayaha iyo walbahaarka jacaylka wuxuuna noqday maqana jooga. waxaana uu yidhi isagoo isla hadlaya habeennimadii markii uu gurigoodii tegey geedi waxa uu taleefonka kala hadlay ubax se ubax waxay u sheegtay inaanay diyaar u ahayn in ay xamse mar dambe la hadasho oo ay wada kulmaan. waxaana ay ka codsatay in uu 7 lambar u daayo oo aanu dib u soo garaacanin. markii waagu sidaa u baryeyna geedi waxa uu toos u abbaaray gurigii xamsiyo. kadib waxa u sheegay farriintii ay u soo fartay ee ahayd inuu iska ilaawo se waa naf wax jecele. xamse ayaa garaacay lambarkii markii uu sidaa geedi uga baxay. se inta laga qabtay ayaa lagu yidhi maxaad rabtaa dee lambarka ii dhig yarow anigaa leh maad ila leedahay. markaas ayuu ku yidhi xamse walaal ubaxay maxaad sidan iigu gelaysaa miyaanad lahayn jidh damqada, maxaad ciqaabtan ii marsiinaysaa walaal, maxaa kugu dhacay? waxaan sugaayey inaad marun ka soo noqotid go'aankaagan walaal. waari dhegayso haddaad adigu i rabto anigu kuma rabo, sidaan kuu nacay ii nac miyaanad nin raga ahayn dee tasho ilayn nin buu ilaahay kaa dhigaye sida dumarka maxaad u calaacalaysaa. ubaxay walaal waan kuu qirtay inaan qaldanaa, xataa haddii aad dan kala wadatay waan kaa oggolahay, laakiin walaal cidlaha iiga tegin, naf kuu baahan baanahay maanta. walaal ubaxay ma laga yaabaa inaad berri ka qoomamayso waxaanaad igu samaynayso, waayo hore ayaa loo yidhi qof waliba wuxuu dhigtuu dhaxalkeeda maalaa. walaal maanta qalad ha iga gelin oo ha igu qaldamin amay foolxumo kugu noqotaa naftan aad maanta eryaysid inaad berri ku soo orodid. waxaa lagu dhigay taleefonkii waana laga xidhay. waxa uu ninkii xamse ahaa arkay in aan cid u soo socotaa aanay jirin ee uu tashado. haddana waa naf wax jecele waxa uu go'aanku ku noqdaa u qaanowaa. markaasuu haddana naftiisa ku qanciyey iska daa rabbi baa jire.
xamse oo isla sii hadlaya ayaa haddana wuxuu yidhi jacaylkaa maantay khiyaameeyey ee igu jiheeyey jarka dheer dib u jalleeci maayo waan ka jeesanayaa. saaxiibkii geeddi ayaa u yimi waxaana uu u sheegay inuu la hadlay ubax waxaana uu uga warramay wixii ay ku tidhi. geeddi ayaa isaga oo saaxiibkii dhiiri gelinaya ku yidhi saaxib inaga daa adduunyadu waa hadhkaa labadiisa gelin maalinba ruux ayuu gacanta ugu jiraa. maalin ayaa ku soo mari doonta saaxib aad gacantaadna ku dhigi doonto wax kasta. saaxib nafsi baa jiree oo kuu hiilin doona saaxibe ee iska daa oo qalbigaaga iyo naftaada intaba ka masax. muddo 3 sano ah kadib ayaa waxaa gubtay oo shoor u qabsaday dhowr bakhaar oo ay lahaayeen ubax iyo reerkoodu oo isku sakada ahaa. waxaana uu burbur weyne soo gaadhay hantidii ubaxyo ay lahaayeen. bil kadibna ubax aabbaheed oo macaan qabay ayaa dhintay. markaasi waxay mas-uuliyaddii kortay ubax iyo hooyadeed iyadoo sidoo kalena ubax walaalkeedii ka weynaa uu tahriibay intii aanu dhimanin aabbaheed isaga oo markaasi lasoo sheegay in dooni ay raaceen isaga iyo dhallinyaro kale ay isla rogtay oo ay badda ku qarqoontay oo uu ka mid ahaa dhallinyaradii halkaasi ku dhimatay ee doonaysay inay u gudbaan waddankaasi talyaaniga. ubax xaafadooda waxay galeen mushkilad hor leh. kadib ubax waxay doontay inay u shaqo tagto mid ka mid ah kambaniyada dharka ka soo dejiya dekedda berbera iyadoo markaasi tagtay xafiiskii. markii ay albaabka xafiiska sidaa u gashay ayaa waxay si lama filaana u aragtay xamse oo fadhiya xafiiska ay shaqada ka rabtay. kadib maxaa dhacay? xamse waa agaasimaha shirkadda oo isaga ah maamulaha. salaan iyo soo dhoweyn kadib waxa uu qoray shaqadii ubaxna wuxuu ka dhigay xoghayn. sidaasi ayay kaga mid noqotay ubax shaqaalaha shirkadda ka shaqeeya. sidii ay u soo shaqo tegi jirtay ayaa maalin waxay sarkeen saaxiibadeed sagal la isbariidi. kadib saaxiibadeed waxay weydiisay halka ay ka shaqayso waana ay u sheegtay shirkadda ay ka shaqayso. markaasi ayay u sheegtay inay ka shaqayso shirkad dharka ka soo dejisa magaalada berbera. waxaana ay ku tidhi sagaley xafiiska waxaa agaasimo ka ah xamse. sagal oo yaaban ayaa tidhi ma ninkii berigii aad xumaysay oo siduu shaqo kuugu oggolaaday? amba ma garanayo laakiin waa qof fiican ismaan lahayn waa uu ku gacan qabanayaa. oo laakiin saaxiib ma xasuusataa sidaad u gashay wiilka xamse? walaal waan ogahay sidii dhaqamada xumayd ee aan ku dheeldheelay jacaylkiisa daacadda ahaa oo maanta waxaa sidaa ii galay waa nafsigii aan ka galay walaal. nafsigii aan galayba ku soo gadoomo adaa gacan sarreeye ama warankayga guux gulaha badan. oo saaxiib horta muu guursaday? mayo walaal. alla saaxiib naagta heshaa nasiib la xamse ee ka faa'iidayso oo dib u soo cesho. walaal taasi ma suuro gelayso isna ma yeelayo ayaan u malaynayaa. saaxiib qofkii shaqadayda siiyey kuma odhan karo aan dib isugu soo noqonno. haddana saaxiib waan habsaameeye nabadgeliyo. ilayn waa dumare habeenkii markii la gaadhay ee ay howlihii guriga dhammaysay isla markaasina ay firaashkeedii dul jiifsatay ayaa waxay dib ka xasuusatay sidii ay u gashay. ilayn dareen jacayl lama dafiree waa lala soo dersay inantii ubax ilaa ay gaadhay inay shaqadii ka habsaantay dhowr cisho. عشق وإديبيو وديبعايا بيركو بقول الكوديهو أذان كوديبانيه إنا عايغا سوئي. aakhirkii arrintu sida ay tahay waxay farta ka saartay saaxiibadeed sagal iyadoo markaasi sagal ay tala ku siisay in ay u bandhigto arrinta oo dhan xamse xataa haddii uu ka diido ay u samirto inta uu ka aqbalayo. maalintaa wixii ka dambeeyey ubax waxay ku fikiraysay sidii ay maalin uun u ballamin lahayd. kadib maalin ayay heshay isagoo ag maraya xaafadooda waxaana ay ku tidhi wey walaal xamse ii warrama fiican tahay walaal. xamse ayaa markaasi u jawaabay waxaana uu ku yidhi walaal waan wacaanahe
xaafadda iyo hooyo ka waran way fiican yihiin adna xaafadii ka waran waa la wada fiican yahay xaalkuna waa wanaagsan yahay alxamdulilah walaal arrin ayaa jirtay goormaan ku heli karaa walaal hadda ii sheeg walaal habeen dambe ka waran walaal kolley waan iska shaqo badanahay oo uma malaynaya inaan haleelaye haddii aanan shaqo haynin waan kuu imanayaa haddii aan la yidhaahdo sidii waagii ayaa haddana labadii saaxiib ee markhaatiga ka ahaa guuldaradii xamse ay soo kala raaceen waa saaxiibkii geedi iyo saaxiibaddeed sagal kadib maxaa dhici doona talow habeennimadii la soo gaadh ubaxna waxa ay tagtay goobtii ballanta xilli ka horraysay xilligii ballanta iyadoo wadata saaxiibaddeed soo gaadhay xamse iyo saaxiibkii salaan kadib ubax iyo xamse ayaa loo kala dhaqaaqay tabtii waagii hore oo kale ubax ayaa markaasi xamse waxay ku tidhi walaal waxaan rabaa caawa in aan xidhiirkeennii soo celino siduu kula yahay xamsow markaas ayuu xamse ugu jawaabay isagoo qoslaya walaal inaga daa ciyaarto maxaad halkan iigu yeedhay walaal waan ogahay inaan qalad kaa galaye walaal ha iga aarsane walaal maanta cagtaada hoosteedaan aalaayo ii naxariiso walaal waxay qaladkan aad ka hadlaysaa naf ayaa waali gaadhay markaasaad i leedahay ii naxariiso idhegayso ubaxay hadalkayga kadibna sanqadha imaqashii taadaad ka hadashaye tay haweeni mariyeen taadaad ka hadashaye tay haweeni mariyeen waxaan taraha joogtee dhibka waan ka tirilaa matalaabsadeen dumar xamsow adna walaali dhegayso haween laguma taagsado ragu waahu tudhi jiray dambay kaa dultaagtee nafta taag darrayse tahli weyday socodkee ubaxay runtu waxay tahay waa taad igu tidhi inaan ku arko dooni maaye I don't want to see you أنا مش عايزة أشوفك mimi hapana sitaki kukuona teeda kale ma kibirkaagii iyo isla weynidaadii markii aad igu lahayd miyaan iloobaa haddaba walaal dhabbada cagta saaro hayga sugin arxane inagu kala dhaqaaji adigaa yidhi nin ragaa tahee tasho adna tasho gabadh baa tahee agtada haddaan shalay uu bax dhigay mantana urusho anaa aase maxaad uga oli halkaad kuu ordaysay jacayle barkeenay dibcaha ixtiraamka markuu omasdaaqay maxaad ugu oontay maxaad aragayga haddeer ugu oyday adoona fariirin markaaga adkayso albaabka wanaagu dhexdeenna ka awdan albaabka wanaagu dhexdeenna ka awdan goobtii ayuu kaga dhaqaaqay iyadoo tabtii u ilmaynaysa uu u ilmaynayey waagii hore ayaa loo yidhi cuquba halkii lagu galay caw ku hurudaa carruurtay ka laysaa ninkii caanabaas dhammee inantii ubax ahayd halkii ayay oohin iyo qoomamayn ka bilowday muddo badan ma soo shaqo tegin ubax jacaylkiina waa uu ku xoogaystay waxay samaysana way garan weyday iyadoo markii dambe ay noqotay xaaladdeedu inay erge u dirto uu ugu horreeyo saaxiibkii geedi iyo saaxiibaddeed se xamse go'aankiisu waa adag yahay oo cid uu wax ka maqlayaa ma jirto inantii ubax ahaydna jacaylku wuxuu ku noqday dacar iyo qadhaadh ilaa caafimaadkeedii
uu halis galay waxaana la geeyey ciraaj si qur'aan looga saaro bal in yaruun ay ka ladnaato amaba ay wax iska beddelaan xaaladdeeda caafimaad wax kasta oo la sameeyo waxa uu cad xamse xataa iyadu in ay wax u noqoto xamse dartii diyaar ayay u tahay oo waa ka dhan tahay iyada teeda kale waxa ogaaday dadkii xaafad iyagoo markaasi ku sheekaysanaya meel kastoo xaafadda ka mid a isla markaana ku hadalhaya dadka qaar ayaa yidhaahdaa war miyaanu nin ahayn wuxuu waa dumare muu isaga dulqaatuu iska saamaxo qaar kale ayaa yidhaahdaa waa abaalkeeda ee hamarta ciqaabta waxay in muddaha arrintu sidaa u cakirnaato ayaa waxa uu maalin maalmaha ka mid ah uu arkay ubax mar alle markii ay aragtay ubax xamse oo maraya waddo ayay ku soo carartay kadib waxay damacday inuu la hadasho waxaana uu ku yidhi intii aanay hadalba maxaad doonaysaa maxaad se rabtaa orod waad xanuunsanaysaaye ma haddaad ii soo baahatay waxba kuuma qaban karee orod iga tag kadib waa uu ka dhaqaaqay iyada oo bartii ka ooyeysa oo xataa aan haysan cid aamusiisaa sidii ay maalin walba xafiiska ugu sii hor fadhiisan jirtay isla markaana ay isaga qarin jirtay inuu arko keliyata si ay doonaysay in ay iyada oo qudhi ay aragto isla mar ahaantaasina ay araggiisa oo qudha ay ku degaysay ubax xanuunkii waa uu ku sii siyaaday ilaa xataa ay gaadhay inay kalan garan weydo halkaay ku socoto iyo waxay ku sugan tahay kadib maalin ayaa waxa dhacday xamse oo ka yimi shaqadii ayaa waxa uu arkay ubax oo aad u xanuunsanaysa oo garbaha la hayo isla markaasina loo sii wado cilaajka aad ayuu uga naxay dhibta ay ku sugan tahay ubax kadib waxa uu u yeedhay saaxiibkii geedii habeennimadii waxaana uu u sheegay inuu cafiyey ubax saaxiibkii geedii aad ayuu ugu farxay waxaana uu u sheegay sagal iyadoo markaasi sagal ay u sheegtay ubax oo sariirta xaafaddooda taallaa oo xataa aan hadli karayn way rumaysan weydii ubax inuu cafiyey xamse kadib waxay la soo booday saaxiib malaha dhab maaha walaal garaac adigu waxay sagal garaacday xamse waana ay wada hadashiisay ubax iyo xamse waxaana uu xamse u sheegay in uu caawa u imaanayo kadib waa uu u yimi waxaana uu ka aqbalay jacaylkeedii iyagoo markii ay muddo joogeen ay isguursadeen isla markaasina ay gaadheen guushii ay muddada badan u soo silcayeen waxaa kaloo ay guul u noqotay xamse oo ay ahayd riyo uu in badan ku riyoon jiray geesta kale aroosku wuxuu ahaa mid farxad aad u badan ee ay ka dhalatay waxayna goobtaa isku caalmaday geeddii iyo sagal dhowr cisho kadibna meherkoodii iyo arooskoodii ayaa dhacay waxaana ay labadii saaxiib heleen laba qof oo saaxiib ah waxaanay noqdeen kuwa gaadhay hadafkii noloshooda intaas ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabaynaa gabayhaanba sheekadiina magac baxday dulmi jacayl nafsi baa daagisiya habeenta iyo farsamada iyo iskudubaridka waxaa iskale maxamed qaliile dhanka tirintana dhegaystayaal waxaa nagala qayb galay hodan maxamuud cabdi cabdirasaaq xasan maxamed afgaab iyo ama maxamuud cabdi abu hureyra maxamed cabdi qaliile dhammaantii dhegaystayaal intaynu sheekadan la mida ku kulmi doono waxaan idiga tegaynaa sidaas iyo amanaallah
adagay gaabtahe hallumin hallumin oo hayga lumin xiskiyo garashada la dhiyo lagiyo beerka tahe hallumin hallumin oo hayga lumine gabadh kugu labayn naftaydaad leedahay miyan laqa kula sima adaan lafka kaa xushee haddaan caashaqu ludiyo naftiya dhooxayga gelin miyaanka noolan lahaa miyaanka noolan lahaa gabadh kugu labayn naftaydaad leedahay miyan laqa kula sima adaan lafka kaa xushee haddaan caashaqu ludiyo naftiya dhooxayga gelin miyaanka noolan lahaa miyaanka noolan lahaa siduu kulaalaybu runtii iliiciyo dharkiisana kula qaba siduu kulaalaybu runtii iliiciyo dharkiisana kula qaba biyaha lagu luuntirtiyo isiyadhay baad tahe hallumin hallumin oo hayga lumin libiyo liibaanifiyo dhammaane dhaafanahe hallumin hallumin oo hayga lumine biyaha lagu luuntirtiyo isiyadhay baad tahe hallumin